caafimaadkaaga ma ka war haysaa caafimaadkaaga ma ogtahay naftaada ma ogtahay nafta odaygaaga ma ogtahay caafimaadkiisa caruurtaada caafimaadkooda ma ogtahay gabarey ya caafimaadka wax aad u muhiimsan ma ka war haysaa caafimaadkaaga fadlan haddii aad doonaysid inaad ogaatid programkan dhammayso si aad uga faa'iidid inaad maqlaysaan central AC-ga shidan xoogaa guuxda yara baxaya isagaa shidan marka I hope inaydin maqlaynin haddaad maqlaysaan fadlan ka raali ahaada ma wanaagsana qofku yani inuu shanqari ay ka baxdo haddii uu video duubayo taasina waa raaligelin waa haddii aad maqlaysaan waxaan ag fadhiya aan u dhowahay maaragtay qaybta central AC-ga uu ku ka shidan yahay بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدنى لدون سلامي ولا دمانتين صادرين تين دتك إيقو حيران دتك إداوضا ماركتي مركز سيدا أد إي كرب تاغنتين أو ماركتي أد إي سيبورت كريسان ماركتي إن أدنى لديكم هاد علنيا داوضيا شقاليقا دمانتين ولا لها كل جي صادرين تين سلام ديران أيا ماركتي أنا هودا إدون صومرينيا إن عاوا وحن كهليا بروغرام ماركتي كوسابسن بروغرام إن بروغرام دي عافيماتكا أون مرمركتا تابين شري waxyaabahan iska basic ah qofkii yaqaana wuu yaqaana ilaaha u siyaadiyo laakiin intaan aqoon baa dadka ka badan si aad uga faa'iidaysataan markaa programkaas baan caawa idin wadaa video hore aan uga hadlay faytaminada oo na wuu jiray oo faytaminadu runtii wax dumar kaliya quseeya maaha waa wax rag iyo dumar yar iyo weyn ma aragtay caruur ciroole qof kasta wax quseeya weeyaan xagga caafimaadka iyo faytaminadan markaa qofku waxaa wanaagsan inuu iska warhayo caafimaadkaaga aad iska warhaysid way waxaa ninkiitiisa daryeela ayaa tu kale ku dara adiga taadu haddaad saxan tahay markaa ninkaaga iyo caruurtaada iyo reerkaagana wax waad ku kordhin karaysaa marka aad halaysaga warqabo oo maaragtay halays ogaado kulli qof kasta primary care ayuu leeyahay dhakhtar buu leeyahay u gaar ah waxyaabo kasta aad kala xaajootid anigu markaa waxyaabahan waan u fara dhuudhuubanahay qof maaragtay waddanka muddo joogtayna waanahay alxamdulilah marka daas waa aan raba inaan hawada idinku soo mariyo si aad uga faa'iidaysataan dabcan hal qof hadduu ka faa'iidaysto aniga intaas maaragtay ugu filan alxamdulilah marka dad haddaynu nahay madow oo afrikaan ah skinkeenu waa skin maaragtay aad u adag weeye oo aad maaragtay u adag oo markasta waxaa laynagu sheegaa in vitamin D deficiency aynu nahay oo dhinacaas aynu aad ugu liidano waad aragteen cadaanku hadday qorraxda isku dhigaan 10 minute 15 minute waxaad arkaysaa iyagii oo dhan oo dhiig u ekaaday hilib camal u ekaaday baad arkaysaa waa skinkooda uu inaga dabacsan yahay waa skin inaga jilicsan oo qorraxdii ugu dhaga nugul yahay marka inta yar baa iyaga ku filan inaga laakiin waxaan u baahannahay ma aragtay hawsheenu intaa way ka weynta qorraxda in la isku dhigaana waa waxa ugu wanaagsan ee qofku markuu heli karayo waqtiyadan kulaylaha samarka aynu nidhaahno aynu haddeer ku jirno inuu qofku qorraxda isku dhigo oo wax aad u muhiimsan oo runtii maaragtay jirka oo dhan baa u wada baahan oo taas waad ku heli karaysaa natural ee wax vitamin D la yiraahdo waa qorraxda la isku dhigo marka waa marar markaynu de qorraxda haysano waqtiyo qayiman oo bilooyin iyo waxyaabo noocaas ah intaynu haysan baa ka badan markaas bay qasab tahay inaad vitamin D-gaaga aad ka warhaysid waqtiyada qaboobaha marna qorraxda isku kaalmee marna ma aragtay vitamin kan daily supplement kan isku taakule uu ku caawinaya dabcan cuntooyin waxaa jira laga qaado vitamin ma aragtay vitamin D-ga cuntooyin u qaasa ayaa jira insha Allah taana waan guda gali doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo mar kale laakiin caawa waxaan rabaa inaan ka hadlo 6 waxyaabood oo ma aragtay oo lagu garto vitamin D-gaagu inuu low yahay waaya qodobka koowaad qof hadaa tahay ma aragtay mar kasta u dhaga nugul inay ku dhacaan xanuunadan ma aragtay hargabku allergiga ma aragtay xanuunada yaryar hadaa tahay qof ma aragtay u dhaga nugul oo always ku dhaco qofka vitamin D-giisu marka uu low yahay saas ayaa sababaysa in aad u dhaga nugulaatid xanuunada yaryar xitaa basic ah ayaa sababaysa marka dad saa isku aragtid markasta inuu hargab kugu dhacayo kugu soo noqonayo qof allergy la tahay flu kugu dhacayo xilliyada waqtiyada qaboobaha la galo hawadu isbedelayso
taas ayaa sababtay vitamin D-gaagu haddii uusan meel fiican uusan maraynin jirkii difaac ma yeelanayo ku filan oo uu isku difaaco oo maaragtay uu uga hortago oo maaragtay ama uga protect-gareeyo iskaga protect-gareeyo ma uu helayo waxyaabaha saas waa lagu gartaa vitamin D-gaagu inuu low yahay always haddii aad saa isku aragtid taas waa qodobka koowaad. qodobka labaad waxa weeyaan qof haddaad tahay always daalan oo daal badan oo ma aragtay maalin iyo habeen qof ma aragtay isaga dhan sariirtaba aan ka kici karaynin, gabdho waxaad arkaysaa ku dhahaya wallahi farma taagi karno sariirtaba ma aragtay kama kici karayno oo maanta dhan iska daalan maalintii habeenkii markasta daal rabbaaniyan oo isaga saaran yahay haddii aad aragtid taasna waxaa lagu gartaa in vitamin D-gaagu inuu low yahay waa waxyaabaha lagu garto daal aan dhammaanayn oo waqtina aan lahayn oo markasta aadan farba taagi karin culays isaga saaran yahay. kaasi waa qodobka labaad. qodobka saddexaad waxa weeyaan qof haddaad aragtay aad dareentay in ma aragtay lafahaaga maxaa la dhahayay oo lafuhu ay ku xanuunaan oo always lafaha ka cabatid ama rugaga ka cabatid ama ma aragtay aad tidaahdid dhabarka ma aragtay dhabar xanuun iyo lafa jabjab iyo haddaad isku aragtid adigu xagga lafaha haddaad isku aragtid ma aragtay xanuuno iyo waxyaabo noocaas taasina waa vitamin D-gaagu inuu low yahay baa lagu gartaa. lafa xanuun rugaga gabdho badan waxaad arkaysaa rugaga aan ka kici karaynin oo dhalinyaro ah taasina waxaa lagu gartaa marka vitaminkaagu inuu hooseeyo vitamin D-gu marka kulli qof kasta dhakhtar buu leeyahay, dhakhtarkaaga la xiriir insha allah bal isa soo ogow hadduu ilaahay yidhaahdo. anigana ha iga ilaawin inaad maaragtay haddaad iga faa'iiday aad ducada iga soo daba tuurtid ama comment qurux badan aad ii soo qortid insha allah. kaasi waa qodobkii saddexaad. qodobka afraad qof haddaad tahay timuhu ay ka go-aan oo maaragtay timuhu qof kasta timaha way ka go-aan oo waa okay laakiin wax haddii aad isku aragtid ma aragtay xoogaa badan oo siyaado ah inay timuhu ma aragtay ay ka go-ayaan waxyaabo badan baa sababa timuhu inay go-aan sida qofku markuu ma aragtay stress ku furan yahay oo kale dad badan yani timuhu saas ay uga go-aan yani waa more complicated kuma dheeraanayo laakiin in yaroo basiga haddaad aragtid cusub ood isku aragtay timahaagu inay go-go-ayaan ma aragtay vitaminkaaga ayaa hooseeya gabarey. timaha waa loo baahan yahay in faraha la isku hayo kor iyo hoos waa loo baahan yahay taasi waa qodobkii afraad. qodobka shanaad haddii aad ma aragtay wax ay ku saraan nabar haddii uu kugu dhaco ama ha yaraado ama ha weynaado hadda kasoo qaad tusaale oo kale waad gubatay ama mindi baa ku jirtay haddii aad aragtid in ma aragtay oo nabarkaa kugu dhacay uusan dhaqso u dawoobaynin qofka caadiga ah usually haddii ay mindi ay kugu dhacdo oo kale isku jirtid ama dab yar oo kugu waxaysmo qofka caadiga within 2-3 days waa inuu iskankiisu uu saa isku soo qabto oo saasuu isku soo gaaro oo yacni uu bugsoonayo. marka haddii aad aragtid nabar markuu kugu dhaco in aadan dhaqso u bugsoonaynin waxyaabaha lagu garto in vitamin D-gaagu uu hooseeyo weeyaan in ma aragtay nabarkii uusan dhaqso u bugsoonaynin haddaad isku aragtid. kaasi waa qodobkii shanaad. qodobka lixaad waxa weeye haddii ma aragtay qodob horan usoo sheegay ayay isa saameeyaan haddaad isku aragtid ma aragtay inay ma aragtay murquhu iyo ma aragtay masalladu iyo adiga dhan ma aragtay masalladu kii hore lafuhu ahaa laakiin kan waa xagga masallada iyo haddaad isku aragtid inaad xanuun ka dareemaysid ma aragtay taasina waa lagu gartaa vitamin D-gaagu inuu hooseeyo. marka lixdaa qodob ayaan ma aragtay aan hawada idin soo mariyay I hope inaad ka faa'iidaan insha allahu tacaala bal wixii aad isku aragteen ila soo socodsiiya hadduu ilaahay idmo iyo waxaa fikradiinu ay tahay aad baan u jeclahay inaan fikradiina arko iyo aydiyihiina marka waa walaashiin Nimca Galaam oo markasta aad uga barateen programmo ma aragtay qurux badan oo fiican oo kulley faa'iido leh waa lixdaa qodob baan kusoo koobaya insha allahu tacaala
marka aad buu caafimaadku muhiim u yahay walaalayaal ha la iska warqabo oo aad maaragtay ha la isku ogaado gabdhow idinkuna maaragtay naftiina daryeela hooyooyin baa tihiin haddaadan hooyo tahay haddaadan hooyo ahaynba naftaada daryeel gabadhii hooyo oo maaragtay reer leh oo caruur leh ama nin u joogana maaragtay ninkaaga ka warhay caafimaadkiisa waayo waa aabihii guriga oo maaragtay shaqadii dhan iyo hawshii badan hayay marka inuu xaajigu uu dhagdhag yahay waa wax aada u muhiim ah marka ka warhay xaajigaaga caruurtaada naftaada ha la isku wada roonaado ha la iska wada warhayo insha allahu tacaala caafimaadka waa wax aada u muhiimsan inta caafimaadka qabta ilaahay caafimaadka ha u siyaadiyo intaan caafimaadka lahayn ummatul islaam meel kastay joogaanna ilaahay caafimaad ha ugu deeqo marka waa walaashii nimco oo idin leh intaan ku kulmi doono program xiiso badan oo maaragtay waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu